yihiin dhahday oo ay ku badneen caalamka laakiin waxay dhahday gabdho noocaas oo kaleeto oo yani saas oo kale ku dhashay inay jiraan laga yaabaa marka waxaan sameystay dhahday barnaamij aan sameeyay dhahday aan ku wacyigelinayo gabdhaha aan u sheegayo tir haddii lacala waxaas ay isku arkaan ama cillado kaleeto oo born different eta ama si ka duwan sida dadka caadiga u dhashay gabdhaha u dhasho dadka soo qaama jeclaanin hadna soo kuwa dooran hadiyaanan wadkulaydi dugiya amar baan midandiriya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسر دمان أصحاب تقاليقا ميل بأجوبتين يسوى البأيدا ونيسد halka aad daawanayso waa simple iimaan magacayga waa Faadimo Bashiir mir hadaa taa markii kuugu horreysay oo channelkayga soo booqatid please subscribe isar like dhac igu sii comment iyo wixii fikraan hoos igu raab nagu soo biirday familka asxaabta qaaliga maanta maxay idin wadaa saa horan igu sheego wax walba igu cusub ama wax walba aan arko ayaa halka idinla wadaaga halka la soo fariistaa idinla wadaaga asxaabta qaaliga maanta waxaan wadaa barnaamijyada aan wada barnaamijyo ka duwan aan wadaa maanta badanaa waxaan jeclahay yani in aniga ka hadlo mar walba yani dadka caadiga ah sida ay ku dhasheen ka duwan in aan yani mar walba idin soo gudbiyo aan jeclahay because qofka caadiga normalka ah qofkiisa kale opposite-ka ah dad waxaa jira oo unique ku ah adduunkan oo ku yar oo si kale oo aan dadka caadiga si u nool yihiin ama si qofka caadiga oo u dhashay oo kaleeto aan u dhalanin oo si kale u dhashay marka asxaabta qaaliga ah barnaamijka saaraba inaan idin soo gudbiyo maanta waxaan idin wadaa gabar Afrikaan ah Elizabeth waxay ka mid tahay gabdhaha dunida unique ku ah cilada ayada ay markaas ay ku dhalatay gabadhan waxay qabtaa laba taran yani way adag tahay sida lagu helo qof ah laba xubin oo labadii xubin oo taranka oo haweenka yani qof walba oo nool waxaa la og yahay inuu hal xubin leeyahay hal xubin ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado laakiin gabadhan waxay kaga duwan tahay gabdhaha kale waxay leedahay laba taran oo haweenka ah subxaanallah ilaahay wax walba waa awoodaa kadib gabadhan waxay tiri anigoo markaan dhashay kadib aan soo yaraa kadib waa arrintaan isku arkay kabacdi waxaan sameeyay dhahday inaan yani ka fikiro dhibaato badan aan ka maro aan infection iyo caabuqyo badan ay igu dhacaan oo yani aan ka dareemo sometimes xataa aan ka dareemo dhibaato yani qofka bini'aadamka waxa loogu talagalay wax ka badan hadduu haysto yani caqabada ka dareemaysa because gabadhan haddartaan oga jeednaa gabadhan waxay dhahday xanuunaan ka dareemayay dhahday waxaan dareemayay labo waxaan dareemayay dhibaato waxaan dareemayay tir inaan dadka ka duwanahay xataa waa qarin jiray dhahday sometimes in aan aniga leeyahay laba xubin oo haween oo taran ah haddana gabadhan kaaga daran labadii xubnood waxaa ka daran laba ilmi siday leedahay subxaanallah yani laba ilmi siday leedahay yani qof haween oo laba ilmi sid lehna waa dareemi kartiin inaa ila aragtiin aan jeclaa asxaabta qaaliga wax walba ani aan reaction ka bixinaayo ama wax walba oo markaas aan rabo inaan idinla soo halkaa la soo fariisto aan idinla wadaago waxaan jeclaa inaan muuqaaladoodana idinla wadaago aan bilaawna gabadha sheekada ayadaa kule idin noo sheekayn doonto wixii markaas seetan ahna aniga ayaa kasii fasiri doono يعني سهر usoo sheegay maxay gabadhan ka cabanaysaa markay waxay dhahday aan isku arkay dhibaatadan ama aan arkay in aan sida ahay oo aan laba xubnood leeyahay kadib waxa ila soo darsay tir xanuunada yani haweenka ku dhaco infectionada caabuqyada ku dhaco haweenka ila soo darsay oo yani aad u daran oo aan ka dareemayo xanuun badan xataa markii dambe dhahday laba zaa'ida inaan dareemo oo igu noqoto aan dhaqaatiir la kulmo oo mar walba soo laalaabo xanuunku mar walba soo laalaabanayo
Elizabeth yani marka hore waxay tiri aniga uma malaynayna dhahday inaan yani uur yeelan karo ama aan ilmo dhali karo because of yani wax aan hadda ahayo waxa waaye wax access ah oo ka badan wixii qofka bini'aadanka caadiga normalka loogu talagalay laakiin hadda waxay tiri waxaan ku guuleystay inaan uur qaado oo aan markaas gabar dhalo saa u jeedina inay gabadha cayaarsiinayso ayaa halkaa nooga muuqdo oo gabadheeda ay taaba gabar weyn. I was a bit stressed, you know, because she came premature. She was born premature. She was not very well when she was born. She had to be on medication, at least 8 medications a day. So, yani waxay dhahday gabadhan yani inaan aniga ilmo dhalaayo ama aan uur qaadayo mirna kuma fikirin laakiin wax walba saa ogna anaga dad islaam aan nahay ilaahay wax walba wuu awoodaa laakiin ayada waxay leedahay marikoole ahayd camal wax aan la yaabay ahayd inaan aniga uur yeesho laakiin cunuga ee dhashay wuxuu ahaa cunug marka hore xanuun ku dhashay dhakhtar yani dhaqaatiir daawo badan uu maray because cunug wuxuu ku dhashay tiri infectionno kala duwan because ayadaa waxay ahayd excess oo xanuunada hore u qabtay marka waxay tiri cunug wuxuu ku dhashay tiri infection oo dhakhtar iyo wuxuu soo maray iyo dhaqaatiir uu soo maray si xanuunka uu ku dhashay looga daaweeyo. gabadha yaraa sheekeynaysa yani waxay leedahay waxaan ku dhashay xanuunaan ku dhashay aniga yani anoo fiican maana dhalna anigoo xanuunsanaa dhashay leedahay. After the birth of her daughter, her uterine fibroid symptoms seemed to worsen, and she was referred to a specialist. I felt there was more to me having uterine fibroids. They told me, yeah, you've got a different sort of womb. You're born with 2 wombs. I've never heard that. I thought, oh, that's not normal. What is that? So they showed me a picture of what it is. They gave me even a leaflet to go and read about it. And that was the journey. Yeah. Elizabeth was diagnosed with uterus didelphys, a double uterus. With this malformation, she was told it would be unlikely she could have any more children. I was diagnosed secondary infertility at that time. Surprisingly, I got pregnant again. It was supposed to be like nearly 4 months pregnant. I had one clot came out and it was very black. They had to rush me, get me a scan done. And that's when they told me I have a miscarriage. That is. yani cunuga hore way dhashay sida waxay ku dhashay cunuga asagoo xanuunsan ee dhashay infection ee caawaqi qabo kadib waa laga soo daaweeyay asxaabta qaaliga ah cunugii kadib waxay dhahday another pregnancy aan qaaday yani miscarriage igu dhacay oo waan soo way iga soo daateen mar labaad ilmihii labaad kumaan guuleysan laakiin ilmihii koowaad ayaan saa ku dhalay oo aan haystaa kadibna wax ilmo ah maana dhalin ilaa haddana weli maana qaadin wax uur ah. So I set up special lady awareness, you know, as a way of educating women and young girls on gynecological conditions and menstrual hygiene. So I have Elizabeth waxay ku nooshahay Ghana si ayada dhahday at the same time waxay dhahday waxaan samaystay dhahday inaan barnaamij aan aniga ku jiro ah barnaamijka wacyigelinta gabdhaha sidaas oo kaleeto
in waxaa laga yaabaa ay tiri caalamka ama dalka aniga aan ku noolahaybo inay dhacday tiri ama ay dhici karto gabar yani gabdho unique inkastoo ay yihiin ay dhahday oo ay ku badneen caalamka laakiin waxay dhahday gabdho noocaas oo kaleeto oo yani saas oo kale ku dhashay inay jiraan laga yaabaa marka waxaan samaystay dhahday barnaamijaan sameeyey dhahday aan ku wacyigelinayo gabdhaha aan u sheegaya tiri haddii lacala waxaas ay isku arkaan ama cillado kaleeto oo born different eta ama si ka duwan sida dadka caadiga u dhashay gabdhaha u dhasho ay helaan inay helaan daawooyin ama right ay helaan yani wax sax ah daawooyin sax ah oo markaas gabdhahaas ku habboon ama ay helaan ay dhahday inaan u sheego yani waxaan inay anigaba aan soo maray ama aniga aan saan oo kaleeta ahaa laakiin haddartan aan ka fiicnaaday ama yani aan saan yani gabdho badan waxay tiri waxay u maleeyaan ay dhahday in ay saan waxba lagu dhalaynin ama ay tahay the last day laakiin ma ahan ay dhahday inaan gabdhaha wacyigeliyaan barnaamijkaas mar walba u sameeyaa oo u qaban qaabiyaa to go again because I do go even in the UK. I've started joining different network groups and women, and I've carried out also outreach in the UK not long ago. So yes, there is more to do, and I hope I can even go global because as I said, that is my intention. Today, Elizabeth is giving a presentation about her condition to a local youth group. Are you looking forward to the presentation? Oh yes, I'm so looking forward to the presentation. I think the fact that I'll be able to tell my story, I just want to see the face of the audience. I believe they are teenagers, which ranges from 12 to probably 19 years old. I'm excited because, you know. asxaabta qaaliga ah gabadhaasaan daawanaya maanta yani wax different igu ahayd weligii aniga maana maqlin saa horan igu sheego mar walbana aan igu sheego waxay tahay waxa unique ah ee aniga aan isdho markaas waa kugu cusub yihiin Faadumo waxaan ayaan jeclahay mar walba inaan idin la hor imaado oo aan idin yani sharaxo ama aan idin hor keeno si aad u aragtiin hadda waxaa laga yaabaa weliga inaad maqlin gabar labo yani xubnood oo taran ah leh laba ilmo sid leh yani hal qof oo waxaas le weliga inaa arkina laga yaabaa oo the first day ay tahay maanta aa waxaan arkaysid ama aa ujeedid yani ani marka horeeto waa la yaabay yani gabadhan sida ay leedahay laakiin markii dambena waxay tiri yani waxay noqotay qof isku tashaday oo ayada wacyigelin bixiso sidii cunug ku dhashay haddana yani ilaa hadda wacyigelinta wado oo dadka saa differentiga yani ku dhashay ama sida kale ku dhashay iyagoo sidii normalka ahayn inay wacyigelisay mar walba ay u taagan tahay oo ay wax u qabanaysaa oo ay rabtaa inay development u samayso yani ismay dhiganin meel ay fariisanin ismay liidin laakiin waxay samaynaysaa development ay samaynaysaa ayadoo unique ee tahay dadka nooceedoo kale in adduunka ku nool in soo helo ay yar tahay asxaabta qaaliga ah waxaa maanta intaas kusoo afmeerayaa barnaamijkeeni yaraa oo aan nooga soo hagaajiyay gabadhaas yani run ahaantiina waxaa waaye barnaamij yar oo wuxuu iska dhiirigelina inta aa barnaamijkan barnaamij wuxuu ku kulmi doona asxaabta qaaliga haddaa tahay markii kuugu horreyso aa channelkayga soo booqato please subscribe noo saar like dhag noogu sii wixii comment iyo fikrana hoos noogu rab asxaabta waxa aan jeceshiin in aniga idinkaga soo sheekeeyo ama aan idin hor keeno yani hadduu barnaamijka idin cajab geliyo like ku badiya like dhag siiyo commentigan oo ila soo wadaagi karta wixii fikirkaaga xor ayaa u tahay intaa barnaamijkan barnaamij wuxuu ku kulmi doono waa aniga oo idin leh sidaas iyo ammaano Allah